السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قيمة هي شرفت لو بالكستو أجوكتان سود وادات بني سلامية وولاشين هاني فنح وحن maanta inay hayaa gabdhaha sharafta lahaa maxaa la yiraahdaa wajigaaga si aad iskaraab u sameeyso adoo gurigaaga jooga oo kuugu noqdo nadiif wajigeedana way kala duwan yihiin qofna wajigiisu wuu qalalan yahay qofna wajigiisu wuxuu leeyahay dufan soo waa kala qaadaynaa waxaan meesha hadda ku haysanaa waxaa la yiraahdaa meesha kan waxaa la dhahaa dayax wuxuu ka kooban yahay xabad sawdo sida aad arkaysaan mid madowga halka ku jira waa xabad sawdo sidoo kale waxa ku jirta xulbad sidoo kale waxa ku jirta huruud waxa ku jira qasil waxa ku jira geedaheena dabiiciga ah oo la isku dardaro intaas ka kooban marka magaciisa waxa la isku yiraahdaa dayax meelaha lagu iibiyana waad ka heli kartaan inta u garanaysa dayax halka kan waxa noogu jira shumbrada geedka la yiraahdo shumbrada Soomaalidu waxa u yaqaanaan qajaarka oo qalalan oo dhalay ah weeyaan suuqa lagu gadaa asagoo qoyana waad iibsan kartaan oo noocyo badan bilay waa taqaanaa sida aan u naqaan scrap ama qajaar halkan waxa noogu jira bariis la shiiday bariiskeena caadiga oo la soo shiiday oo la soo budeeyay hadaba saddexdaas shay oo la isku daray baanu sameysanaynaa waxaan u sameeynaa wajiga dufan kale waa wajiga dufan kale qaadanaya halkaas ku shumanaya haafkeeda waxaan ku darsanayaa shumburadii waxaan sidoo kale ku darsanayaa bariiskii la soo shiiday ee halka igu jiray saddexdaas ayaan isku qasaynaa waxaan u maranaynaa qofkii lahaa wajiga dufan kale haddii uuna wajigaagu dufan lahayn oo wajigaagu uu yahay waji dharay ah asagana waxaan sameeynaa haddii Ilaahay yiraahdo sidoo kale asxaabay qofkii wajigiisu uu dufan leeyahay xoog ah wuxuu ku darsanayaa waxa ka loo yaqaan Marookan kale halkan aan ku haysano oo la wada garanaya umaleynaya badankiina ablaha wax marsado oo sida waxa loo iibiyaa maxaa la yiraahdaa qasilka iyo huruudiyo loo xirxiro Marookan kale baa la yiraahdaa waxaad kale ku darsan kartaa biyahan wardiga la yiraahdo waad ku qasan kartaa ayadana marka waxaan aad u rajaynayaa dhamaantiin in qof walba sidii uu qanciyo ama wajigiisa habka uu yahay haduu yahay wajiga dufan kale haana waa kaasa waa sheegna saddexdaas shay la isku darsaday baan u isticmaalnaa haddii uu yahay wajigi bilaa dufanka ahaana waa kana maxaa la dhihi jiray qaybta kale aad ku darsan lahaydeen asxaabay sidoo kale to Marookan kale waxa loo isticmaalay labada dhinacba oo isticmaali karaysaayo asxaabay Marookan kale sida hore inagu sheegay laba nooc waa loo isticmaalay haddii wajigaagu uu dufan leeyahay oo aad intaan soo marsatay waxaad marsan kartaa Marookan kaleegi oo asna 15 daqiiqo kadib ayaad marsan kartaa intaad ama wardi ku darsatid haddii wajigaagu leeyahay dufan ma wardigaad ku qasaysaa biyaha loo yaqaano haddii uu wajigaagu dufan lahayn oo sidana kale oo dheereeyahayna biyo cad ayaad ku qasanaysaa 15 daqiiqo baad u daysanaysaa wajigaaga waan ka dhaqaysaa wajigaagu wuxuu noqonayaa mid nadiif oo sulub ah oo aad uga heli doontiin dhamaantiin aad baan salaamay asxaabteeda qaaliga ah hadda waan qasanayaa anigu qaybtaan isticmaal rabaa haddii Ilaahay yiraahdo kadibna waxaan isticmaali doonaa kaas kale haddii Rabbi idmo waxaan rajaynayaa in aad uga heli doontaan dhamaantiin wajigeedina ay noqon doonaan wajiyo nuur doona waxa gurigaaga aad joogo waxyaalo badan aad helisid oo dabiici ayaa ka fiican waxyaalo dad ku soo sameeyeen oo soo moorgareeyeen oo aadan garanaynin waxaan rajaynayaa gabdhaha Soomaaliyeed dhamaantood inay ka faa'iideystaan ay wajiyadooda hagaajiyaan gurigaaga iskaraab ku sameeyso walaale maxaa la yiraahdaa isqurxi oo dabiici ah oo dubka iska qaadanin aad baan salaamaya dhamaantiin intii hore ilo joogtana waxaan leeyahay waa saaxiibo wanaagsan baatiin waa mahadsantihiin inta hadda ilo iimaan doonto ama daawan doonto fiidiyogan waxaan leeyahay like iyo share iyo subscribe badhaha waa walaashin wanaagan in la jeclahay iyo waxyaalaha naturalka ah aad baan salaamaya dhamaantiin saaxiibayaan